is the Lover? Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. Assalamu alaikum. Ramadan wanaagsan. maanta kooda bisha Ramadan waxaan rajeynayaa in si caafimaad farxad ibraar leh ku bilaabatay. waxa Ilaahay uga mahad celinaynaa inuu bishan soo gaarsiiyay. waxaan Ilaahay jannatul firdawsi iyo naxariis aad u weyn ugu baryeynaa intii hore u geeriyootay Ramadaankan u suurageliyay inay soo gaaraan dhamaantood. inta kadib waxaan maanta ku balansanay in uu noo bilaawdo barnaamijkii bedel noloshaada xalqadiisa koowaad. balse intaanan u gudbin inta waxaan ugu horeyn muhiim ah ama isla fahano in Ilaahay dhaxdeena dhigay hadiyad qaali ah oo qof walba hadiyad u gooniyo Ilaahay siiyay. waxa la dhahaa qof walba 15,000 ee ka agdhow wax uu kaga duwan yahay ayaa jirto. adiga iminkan idaawanaya wax ayaa jirta aad kaga duwan tahay 15,000 oo qof iyo in ka badan. haddii aad ku shukrinin Ilaahay ugu mahad celinin oo aadan ku faanin nimcadaas Ilaahay ku siiyay oo ku ayaan daro rajo la'aan iyo quus ayaad nolosha ka qaabilaysaa. marka waxaan rabaa inay loogato ugu horeyn muhiimadda waxay tahay inuu Ilaahay quraankiisa ku sheegay hadiyadaas awoodeedii weynideedii iyo nimcooyinka Ilaahay ku siiyay halay la egtaa waxay tahay. waxaan rabaa inay loogato inuu Ilaahay quraanka ku sheegay in nimcooyinkaas nimco ka badan uu ku siiyo oo waa tuu dhahay oo inta cudu nicmatallahi la tuhsuha. waa nimco aad u weyn oo san qof walba tirin karin haddii aadan ku mahadinin rajada nolosha aad ka quusan doonto. mid kale kugu daro nabiga waxa uu u duceeyay qof walba oo garta awoodiisa qadartiisa iyo qiimuhu Ilaahay siiyay oo xadiis ayuu wuxuu ku dhahay rahimallahu rajula man arafa qadara nafsuhu. Ilaahay uu naxariisto qof garta awoodiisa iyo nimcadiisa. marka halka waxa ka garan kartaa qofka haddii aanu ka mahadinin nimcadu Ilaahay siiyay ee aanu garowsanin awoodiisa iyo qadartiisa waxa uu qaabilayaa nolosha qaybteeda quusta. marka ma mudnaba inaad nolosha qaybteeda quusta iyo marmarsiyada iyo rajo la'aanta aad qaabishaa. marka waa inaad qaabishaa rajadeeda iyo wanaageeda iyo diiladeeda. si marka inta u qaabisho waxa muhiim ah number 1 horta inaad hagaajiso nafsadaada. nafsadaada waxa u hagaajin kartaa waa inaad hagaajisaa waxyaabaha soo saameeya aad ugu horeyn si aad nimcooyinkaas uga faa'iideysato. waxa muhiim ah in aad hagaajiso waxyaabaha saameeya naftaada. naftaadana waxa saameeya waxa ugu weyn waa 4 shay. waa waxa aragto, waxaad maqasho, waxa isu sheegto iyo waxaad sameeyso. ugu horeyn waxa aragto hadii ay yihiin muuqaalo xun oo aanan u habooneen maskaxdaada iyo noloshaada way saameynaysaa naftaada. waxaad maqlayso iyadana hadaysan ahayn wax wanaagsan iyo diilay rajo ku keenaysa iyaguna way saameynaysaa noloshaada. waxa isu sheegayso hadaysan ahayn rajo abuur iyo jacayl iyo wanaag iyo daryeel wax ku keenaya iyaguna way ku saameynayaan. waxa sameynaysa sidoo kale waxaas oo dhan hadii aad hagaajiso waxa isbedel weyn ku soo biiray noloshaada. sidoo kale bulshada ayaa ku soo biiraysa isbedel weyn. waxa noqonaysa tusaale nool oo dadka ay ku daydaan wanaag lagu xasuusto jacaylka iyo daryeelka lagu xasuusto. marka sida aad hagaajin karto waxay tahay number 1 horta inaad iska jarto iskana joojiso daawashada muuqaalada xun ee aan ku wacnayn. muuqaalka nooc doona ha noqdo wixii aad u aragto in aan u wanaagsaneyn noloshaada ee xumaan ah waa inaad iska jartaa. wixii aad u aragto in noloshaada u wanaagsan yihiin waa inaad daawataa. ay ka mid tahay daawashada muuqaalada dhiirigelinta, ay ka mid tahay muuqaalada wacdiga iyo waana sheega iyo rajo abuurka. hadda inta aad maalin walba sikin walba iyo daqiiqad walba aad daawato iyo muuqaalada aqoon kororsiga iyo waaya aragnimada iyo khibradda ku jirta aad daawato noloshaada waxa ku soo biiray rajo. markasta oo hadlayso waxa ku hadlaysaa xikmad. markasta oo wax sheegayso waxa sheegaysaa fariin qurux badan. laakiin haddii aad daawato waxaan ku wacnayn waxay ku keenaysaa rajo la'aan iyo quus. waxa labaad oo raba inaad hagaajiso waxay tahay waxa aad maqlayso. sidoo kale waa inaad dhegeysataa rajada ku abuuray, waa inaad dhegeysataa aqoon kororsi, waa inaad dhegeysataa fariimo wanaagsan nolosha, waa inaad la fadhiisato dadka waaya aragga ee nolosha hore wax uga soo arkay. haddii aad la fadhiisato noloshaada wax ku soo biiraya. markii aad la fadhiisato iyadana waxa gudbinaysa wax wanaagsan, waxaad dhegeysanaysaa wax wanaagsan. waa tii xadiis uu ahaa haddii aadan khayr ku hadlayn iska aamus. maxaa wax sida loo dhahay adigay dantaada ku jirtaa sababtoo ah dadka wanaagsan wax walba ma dhageystaan ilaa wax wanaagsan mooyaane. adiga dadka wanaagsan inaad qayb ka noqoto loogu baahan yahay. waa inaad dhageystaa wax wanaagsan. wax saddexaad la rabo inaad hagaajisaa waxay tahay waxa isu sheegaysa adiga. dadka guuleysta caadada ay leeyihiin waxa kamid ah aroor markay soo toosaan
waxay sameeyaan ugu horeen waxay la hadlaan naftooda markii cibaadada alle iyo waajibaadka alle ay soo gutaan marka adigana waa inaad caadadaas yeelataa waxaad u dhaqmaysaa sida dadka guulaysto kaleeto marka aad soo toosto waa inaad nafsadaada kula hadashaa erayo wanaagsan rajo abuur leh iyo didiilo leh haddii aad erayadaa kula hadasho nafsadaada waxay helaysaa daryeel ixtiraam qadarin inta aad dadka kale siin jirtay in ka badan ayaad nafsadaada u helaysaa waxaan awood u yeelanaysaa inaad noqoto qofkii aad ku riyoonaysay shayga ugu dambeeya ee naftaada saameynayo haddii aad hagaajisan aad guul baraaro leh keenayso waxay tahay waa waxa aad sameynayso haddii ficilada aad samayso dhammaantood ay ahaan jireen kuwa xun waa inaad sabab u noqotaa bisha ramadaan iyo barnaamijka bedel noloshaada inaad dib u bedesho waa inaad wax wanaagsan qortaa waa inaad wax wanaagsan sheegtaa waa inaad wax wanaagsan qabataa oo dadka caad caawisaa danyarta aad maxay ahayd shaqada aad qabanayso ay noqotaa caawimaad markastoo aad dad caawisaa waxay la mid tahay adigoo naftaada caawiyey marka waa inaad shaqo wanaagsan oo rajo abuur iyo didiilo leh oo wanaag sheeg ah aad samaysaa haddii aadan wax wanaagsan samayn karin ka fadhi xumaan ha u dhaqaaqin sababtoo ah noloshaada ayay saameynaysaa xumaan walbo aad samaysaa marka waa inaad afartaa shay iska hagaajiso shayga ugu horeeya wuxuu ahaa waxaad aragto waxaad maqasho waxaad isu sheegto iyo waxaad samayso dhammaantoodna haddaa hagaajiso waxaad gaaraysaa isbedel weyn tani waa hordhaca barnaamijka bedel noloshaada insha allah britol ayaa waxaa noogu bilaaban doonaa xalqooyinkeenii oo mid walba aan ugu sheekeysan doono wax u muhiima noloshaada haddii aad ka heshay barnaamijkan saaxiibada la wadaag qaybta hoos commentiga nagula wadaag wixii aad ka faa'iiday sidoo kale rukumo janaalka haddii ay jirto talooyin fariimo aad jeclaan lahayd in lagula wadaago arrinna aad uga baahnayd xal qaybta gmail shaashada kaaga muuqda ayaad igala soo xiriiri kartaa waa mahadsantiin ramadaan wanaagsan anigu cabdi fataax